maanta ay taariikhdu tahay 19 bisha February sanadkan 2018 waxaa golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku dhawaaqeen taliyayaasha ciidamada asluubta booliska iyo sidoo kale nabad sugidda. haddaba shakhsiyaad caanka ayaa xilalkaasi loo magacaabay golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay maanta yeesheen kulan aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen isla markaana ugu arrinsanayeen arrimo dhowr ah waqtigan dalka ka taagan sida xirnaanshiyaha suuqa weyn ee Bakaaraha iyo sidoo kale magacaabista taliyayaasha ciidamada booliska nabad sugidda iyo sidoo kale asluubta. taliyaha booliska ayaa loo magacaabay Bashiir Maxamed Cabdi halka taliyaha nabad sugidda loo magacaabay Xuseen Cusmaan Xuseen halka taliyaha asluubta loo magacaabay Janaal Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo xilkan horey u soo qabtay. dadka siyaasadda indheeya ayaa waxa ay durbo dhaliilayaan qaabka magacaabista iyo soo xulista shakhsiyaadka la magacaabay kuwaasi oo qaarkood shaatigoodu uu wasaqaysan yahay halka kuwa kalena la sheegay inaan aqoon aynan u lahayn arrimaha ciidanka. haddaba waxaa qadka taleefanka si toos ah ugu jira falanqeeye arrimaha siyaasadda Dr. Mukhtaar Maxamed Cali. Dictore may maqashaa? aad iyo aad baan ku maqlaa weliga maxaa Cabdullah. shakhsiyaadkan maanta la magacaabay ee ah taliyayaasha ciidamada booliska nabad sugidda iyo asluubta aqoon nuuce ayaa adigu u leedahay? bismillahi raxmaan raxiim waan ku salaamayaa idaacaddana waa salaamayaa shakhsiyaadkaas aniga waxaan ka aqaanaa nin la yidhaha Bashiir Goobe oo maaragtay ciidamada asluubta mar madaxa looga dhigay oo dhibaato badan ku sameeyey eridii weyneed oo laga geli jiray xabsiga ninka guriga fidlada ka dhisay waa asaga waa nin maaragtay shaatigiisu oo sharaysan yahay waa nin ku fashilmay maaragtay xelalka loo dhiibay marka ninkaas horta aad baan u garanayaa kuwa kalena kolley waxaan u malaynayaa mid ka mid a inuu maaragtay Puntland ka soo jeedo oo maaragtay cabdiweligaas raggu wata uu yahay marka aad iyo aadaan isu darrow tahay maanta farmaajo inuu maaragtay sidaas maaragtay wax u qoondeeyo oo maaragtay awoodaha ciidamada iyo taliyayaasha ciidamada uu ka dhigo dad maaragtay recommendation ee maaragtay Puntland ay kasoo bixisay iyo kuwa meel ay maaragtay uga jiraan Soomaalida taariikhdooda aysan jirin wuxuu ku xumaanayaa waxaasoo dhan dadka xamar dhigan weeye wuxuu maaragtay cashuurta ka qaadaya dadka xamar dhigan weeye waxa la dilayaa waa dadka xamar dhigan waxa weeye marka farmaajo dhibkii uu ummadda ku hayo dhibkana kusii daray u malayn maayo marka taas maaragtay inay waxba u noqonayso waxay soo dambejinaysaa saan isleeyahay maaragtay hanaankiisaan oo dhan iyo maaragtay confusion uu ka qaaday maaragtay nidaamkan dawliga ah uusan aqoon ayaa waxay soo dambejinaysaa maaragtay inuu meesha isaga tago waana dhacaysaa waa laga soo horjeesanayaa cadaaladna kuma dhisna waxa uu sameeyey weligiisna cadaalad ma sameey maryadaa maamulka dowladeed iyo maaragtay nidaamka. Mukhtaar haddii aan kaa dhex galo taliyaha ciidamada nisa ama nabad sugidda Xuseen Cusmaan Xuseen waxa uu ahaa xildhibaan ka soo jeeda magaalada Baydhabo November 2016 ayuu ka guuleystay Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye oo kursigaasi uu ku loolomay 48 cod ayuu ku soo baxay. hadda wuxuu ahaa wasiir ku xigeen wasaaradda caafimaadka mar haddii uu nisa hoggaan uu noqday waxay la micno tahay inuu banaynayo booska xildhibaanka. haddaba rajada uu sii hayn karo xilkaasi ama halkaasi uu kuga sii nagaan karo intee bay la eg tahay? waxaan la xasuusan yahay in Sembolosho tan oo kale ay ku dhacdo xildhibaan ahaa nisa loo wareejiyay kadibna xilka laga qaaday sidaana uu ku seegay kursigii baarlamaan. haddaba shakhsigan la magacaabay ee Xuseen booskaaskiisa uu baneeyay halkan ma uga shafeeci doonaa markaas ma uga maarmi doonaa mana ku sii nagaan doonaa xilkan? maxamed cabdullaahi aad iyo aad aa u mahadsan tahay waxaad moodaa dadka wax soo magacaabaya inay si indhalaana kusoo magacaabaan dadka la soo magacaabayo waxa weeye horta ammaanka khibrad ma u leeyahay ma loo soo tababaray ciidamada nabad sugidda iyo maaragtay waxay yihiin ma yaqaanaa xaggee ka yimid backgroundkiisu muxuu yahay soomaalinimadiisu maxay la eg tahay waxaasoo dhan meesha kala jiraan waxa weeye waa maaragtay si waaliyaa lagu soo magacaabay oo maaragtay laablakaca waxna qaban mayo waxaan rajaynayaa maaragtay inuu maaragtay isaguna ama meesha ka tegi doono ama iscasili doono waayo waxa weeye waxa la soo magacaabaya qof walba waxaad moodaa inuu qof kale ka liito maalinta midkay tuurayaan midkay soo magacaaba waa kasii liitaa marka waxa weeye dalkan rajabeelaa ku dhacay magaalada muqdisho meel kasta laga godoomiyey rajadu waa iskaga tahay wadankii gaajaa ka jirta abaaraa ka jirta amaanxumaa ka jirta ganacsatada yartaa inuu Bakaara wax keenaysay oo ummaddu maaragtay ay ku hoos noolay ayagiina waa tanaxanimo oo raashinkiina maaragtay ka dab looga xanibay canshuur dheer la saaray canshuurtaas oo laga qaaday Puntland oo laga qaaday maxaa
maxaan ku dhaha jubbaland oo maaragtay miisaaniyadii soomaaliya waxa lagu leeyahay laga rabo dekeda xamar laga rabo iyo airportkeeda waxa weeye wax la yaab la weeye waxaan u baaqayaa ummadda soomaalida muqdisho degan inay maaragtay fadhi degdeg yeeshaan arrintaana ay ka munaashaqoodaan maaragtay waxa ninkaana ku wada dadkan gobolkan degan maxaa cabdullaahi horena waa u sheegnay haddana anigu waa sheegayaa maaragtay si daaragtiaan u sheegayaa dadkan ayuu wuxuu rabaa jiritaankooda iyo sharafkooda inuu kansargareeyo laakiin dadkaana weli waa nool yihiin baaqigooda waa joogaa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa asaga inay afrigaawada noqoto waxa uu sameeyey maanta aad baa umahadsan tahay kaana waxau ahaa doctor mukhtaar maxamed cali oo qadka taleefonka ee magaalada muqdisho igu waramayay doctor ayaa mahadsan maxamed ayaa mahadsan aad iyo aad baa umahadsan tahay